Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta oo aynu kaga hadli doono qodobo aad u muhiim ah. Ma qeexi kartaa waxa ay guushu tahay? Haddii aad dadyo kala duwan aad weydiiso waxa ay guushu tahay, waxa uu qof waliba kuu sheegi doonaa waxa uu isagu doonayo inuu ku guuleysto ama uu xaqiijiyo. Sidaa darteed, guushu waxa ay noqonaysaa mid lagu kala aragti duwan yahay marka ay noqoto xagga qeexidda, balse guusha guud ahaan waxay ku soo ururaysaa macnaheedu inuu yahay qof waliba inuu xaqiijiyo waxa uu doonayo inuu gaadho ama uu rabo inuu ku guuleysto si uu mustaqbalkiisa iyo noloshiisa dambe uu wax uga beddelo, isla markaana uu u noqdo qof mar walba qorshayaashiisa iyo hadafkiisa ka midho dhaliya. Haddaba, waxaa jira 5 arrimood oo aad u baahan tahay inaad samayso si aad guul uga gaadho qorshayaashaada. 1. Ku dadaal cibaadada iyo waajibaadka Ilaahay ku saaray, waayo cibaadadu waxay kaa caawinaysaa inaad ku guuleysato qorshayaashaada maadaama aad tahay qof Ilaahay ku xidhan. 2. Waxa aad qortaa oo aad qodobaysaa dhammaan waxyaabaha aad doonayso inaad guul ka gaadho, sida haddaad rabto inaad xirfad barato ama aqoon kale aad doonayso inaad meel ka gaadho. 4. Waxaad iyadana ku dadaashaa in aad joogtayso qodobadii iyo arrimihii aad qoratay oo aanad kala jarjarin. 5. Waxa aad dib u qiimeysaa marka uu toddobaadku dhammaado hawshii ama arrintii aad doonaysay inaad guul ka gaadho, inta kuu fushay ama kuu hirgashay iyo wixii kaa qabyoobay, si aad toddobaadka dambe dadaalka halkii uga sii laabto, isla markaana aad ugu dadaasho toddobaadkii hore wixii kaa qabyoobay ama kaa baaqday inaanu toddobaadkana kugu soo noqonin. Haddaba saaxiibayaal, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Haddii aad muuqaalka halkan nala soo gaadhayna, fiidiyowga like saar. Haddii aad nagu cusub tahayna, channelka subscribe saar. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.